بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أحبابي في الله إلهي سبحانه وتعالى هايدين بركيو إلهي هضافو ذنبينا إذن بوالدكينا بإلهي هضافو إلهي سبحانه وتعالى هنقا أقبله وحي أعمال إي خير إي وناقة إن شاء الله تعالى كليب كي غير أيان ربائنا نقفى إذيستو هدو إلهي سبحانه وتعالى إي أقلادو faa-iidada ay leedahay ama dadka muslimiinta ah wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka rabo khaasatan dadka ilaahay uu siiyey cilmiga ilaahay uu siiyey oo ilaahay waxbaray xaqiiqatan walaalayaal runtii anaga waxaan nahay ummad Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummadda ugu khayr badneed taasi waxaan ku naqanay wax kale ma ahan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar inaan isfarno wanaaga aan iska reebno wixii xumaan ah oo ilaahay looga caasinayo ayaa waxaan ku naqanay ummadda tan ugu khayrka badan sidoo ilaahay uu leeyahay wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أن إلهي بأوليه هل إذن كهلا أمد أودت كفريس وناقة كان ريويس حمانتا كوا سوحي أهادين كوا ليباني إلهي سبحانه وتعالى آيات فربضا أيو كليه سداسي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلهي وحولي هاي waxaad ahaateen ummadatan ugu khayrka badan maxaad ummadaha dhan aan ugu khayr badnaanay wax kale ma ahan waxaan ummadaha dhan aan ugu khayr badnaanay wax kale ma ahan waa al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar inaan ummadani wanaaga aan farno xumaantana aan ka reebno maxaa yeelay mu'miniinta mu'minka kale wuxuu u yahay sida muraayada oo kale mu'minka kale wuxuu u yahay tiir midka kale ayuu caawiyaa waa is caawiyaan marka haddii la waayo dad macruufka fara munkarka reeba haddii la waayo dad u istaaga haddii la waayo khatar badan ayaa ka imaan karta khatarta ka imaanaysa waxay tahay reer banu Israa'iil waxa lagu lacnaday wax kale ma ahayn soo ilaahay subxaanahu wa ta'ala tilmaamay in la lacnaday waxa lagu lacnaday waxay ahaayeen kaanu la yatanahawna an munkarin fa'alu waxay ahaayeen kuwa aan reeweynin oo aan iska reeweynin oo aan iska celineynin munkarkii la sameynay oo kama reebi jirin way ka aamuseen waa lagu lacnaday haddii anaga aan ka aamusno inaan dadka wanaaga u sheegno xumaanta aan ka reebno haddaan anaga ka aamusno oon anaga iska aamusno aan iraano war aniga waan dugtaa oo waan cibaadaysadaa oo waan dhoorsanahay haddaan dhahno ummadani muslimiinta ayaa u maqan ummatu Muhammad maxaan ku nahay anaga waxaan ku nahayna waxay tahay الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر meel kasto aad dunida ka joogno inaan u istaagno inaan dadka wanaaga aan farno xumaantan aan ka reebno haddii ay taas dhici weyso ay culimadii ay wada aamusaan dadkii ducaadii ay wada aamusaan oo la waayo wax macruufka fara la waayo dhib badan ayaa ka imaan kara waxa imaanayaan jiilba jiilka kasii dambeeyo inay kasii xumaadaan ay kasii daraan maantay waa u jeedaan walaalayaal
ummadii muslimka ahayd oo dhan waxaa dhimatay akhlaaqiyaadkii islaamiga oo dhan waa dhinteen. gabdhaheeni waa kuwa iska qaaqaawan, wiilasheeni waa kuwa iska dharkooda ilaahay xaalkiisu og yahay, ay ka tageen sunnadii nebi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. dadka qaar waxaad arkaysaa hataa athar oo diin hataa kama muuqdo, raad diimeed hataa kama muuqdo, wax raad diin ah hataa kama muuqdo. so maxaa keenay dhibtaasi dhan? dhibtaasi waxaa keentay markay culimmadii iyo dadkii ducaada ahaa oo nebiyada dhaxlay oy ka dhaxleen cilmigii iyo risaaladii inay dadka gaarsiiyaan ka dhaxlay, markay aamuseen waxaa ka ratibantay inay maanta dadkii juhashii aan cilmiga aqoonin oo caqliga gaabnaa inay maanta ay ummadii ka caqli badiyaano ummadii wix alaala waxay aqligood ayaga ka helaan ay ummadda diin ugu dhigayaan ayaa imaatay. haddii uu cilmiga uu yahay wax qof walba uu sheegan karo lakaana alximaaru faqiihan, dameerka ayaa wuxuu ahaan lahaa faqiih caalim ayuu ahaan lahaa. laakiin cilmiga ma aha wax sidaas lagu gaaro. walaalayaal, dadka ilaahay wax baray ha yaraadaan ha badnaadaano, dadka ilaahay diinka fahamsiiyey qof walba ugu waajib ayaa ku saaran. diintan inaa ka hadashid waajib ayaa ku saaran, inaa ummadan gaarsiisid waajib ayaa ku saaran, inaa ummadda macruufka ah fartid waajib ayaa ku saaran, inaa munkarka ah ka reebtid waajib ayaa kaa saaran. adigoon iloo weynin nafsadaada, kow adiga nafsadaada ka bilaawaysid, kadibna ahalkaaga aad gaarsiinaysid. haddii la qaato fabiha wa nicma, haddii la qaadan waayana adiga waajibkaaga waa gudatay. ilan hadduu nebi Muhammad uu dhahay wamaa calaya ila albalaaq, aniga korkayga ma ahaanin ilaa inaan gaarsiiye mooyaane. nabiga waa gaarsii ayaa la yidhi, bas adiga ummadan u sheeg bas waxaan halaga hala dheh, adigana hala imaanin markaad adiga aad dadka ka reebtid. haddii kale aayadii waxaa soo gelaysaa ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun. mama dadkaad waxaa faraysaan wanaaga inay wanaaga sameeyaan, xumaantaad ka reebaysaan, ma nafsadiinaad ma ilooweysaan idinkoo kitaabka akhrinaya? miyaadan caqli lahayn? saan adiga aadan usoo hoosgelin, awalan adiga nafsadaada islaaxi. waxa ummadda aad u sheegaysana aad ha ahaadaano waxa ilaahay iyo rasuulkiisa dhahay oo adiladeeda iyo axaadiisteeda iyo aayadihii isdul saaran beri markii qofkii meel u raaco oo helay ha ahaato. laakiin inaad adiga maantay ummadda caqligaaga aad diin uga dhigtid, diin ma naqanayso. walaalayaal, diinteena aan barano, kadibna walaalayaal inta anaga aan baranay aan ku camal falno, ummadana aan gaarsiino. cilmiga waxaa la rabaa inay adiga kaa muuqato. ninka daaciga ah ummadan wanaaga ugu yeerayo, munkarka uu ka reewayo, waa inuu horta asiga markii hore asiga nafsadiisa u islaaxiyaa, kadib ayaad ummadda islaaxin kartaa. laakiin haddii adiga aadan nafsadaada islaaxinin oodan nafsadaadan ka adkaanin, goormeed qof kale ama shakhsi kale aad islaaxin kartaa? maya, waa ma suurtagelayso. marka dadka ducaada ah walaalayaal, anaga aan nafsadeena ila islaaxino, anaga aan isku dadaalno, kadibna aan ummadan kale anagan aan islaaxino, aan wanaaga u sheegno. maanta walaalayaal, dhallinyaradeena waa baaba'day, dhallinyaradeena diin la-aanay u baaba'day, akhlaaqiyaadkii ayaa ka dhintay. wax walbo waxay naqdeen maantay nin walbow social media ayuu dhex taagan yahay. meeshaas ayuu wuxuu leeyahay aniga xaaskay baa isqabanay, social media ayuu la soo galayaa. hase iyona haddii qof kale isqabtaan waa isku dhex caynaya. war soo ma ahayn sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr. nin muslim oo la caayo soo faasiqnimo ma ahayn, in la dilana soo gaalnimo ma ahan. soo ma ahayn inaan cirdigeena, nasabkeena, sharafkeena, qiimaheena qofka walaalkiis kale muslimka inuu ilaaliyo soo ma ahayn. soo ma ahayn tii nabiga uu na baray sallallahu alayhi wasallam, akhlaaqiyaadkii nabiga soo ma ahayn walaalkaaga muslimka inaad ceebtiisa asturtid, soo sunna ma ahayn. soo ma ahayn diinteena tanna amrayso inaan iscaawino, soo diinteena ma ahayn. aaway akhlaaqiyaadkii,
aaway walaalyaal dadkii muslimiinta ahaa oo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tarbiyeeyey akhlaaq fiican u dhaafay aaway akhlaaqiyaadkii aaway walaaltinimada muslimid al-ukhuwata al-islaamiya intay ka baxday soo ma ogid miyaa walaalkaaga muslimka ah haddaad ceebtiista asturtid inuu adigan ilaahay ceebtaada asturayo anaga maxaan maanta inugu jirta war aniga see liicaan karaa aniga see wax liiga sheegi karaa aniga see sidaan liidhihi karaa akhi fillah walaalkayga muslimka oo walaashay muslimada ahay nabi muhammad oo khayru khalqillah ah intuu ilaahay abuuray nabi muhammad ayaa u khayr badan salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabi muhammad aa la caayay sixroolo lagu tilmaamay waa waali lagu tilmaamay nabi muhammad ayaa la caayay haddii lagu ceerinayana magaalo laga bixinayana nabi muhammad ayaa meeshuu ka dhashtay laga saaray salawaatu rabbi wasalaamu calayh adiga maanta haddii lagu caayo adigoo dacwo gaarsiinaya lagu caayo waxaad ogaataa inaad wadadii nabi muhammad salawaatu rabbi wasalaamu calayh aa haysid acmaashaad inuu camalkaaga dacwada inuu ilaahay aqbalay lianna markay saxaabada dacwada u istaageen waa lagu dhibaateeyey diinta gaarsiinteeda markay u istaageen waa lagu dhibaateynayay adiga haddii maantay lagu caayo ama wax kale lagu gafo wax lagaa sheego ogow inuu ilaahay acmaashaada aqbalay ha u istaagin ee horay u soco dadka wanaaga u sheeg waa tii ilaahay noogu faaloonayay saxaabada ay dhihi jireen laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura awaalmarin iyo mahadcelin toona idinkama rabnee maxaa yeelay anaga waxaan ka cabsanaynaa maalinta qiyaamo innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamtariira qiyaamaha ayay ka baqi jireen saxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam anagana maantay hebel ayaa wax iga sheegay hebel ayaa i caayay hiblaayo ayaa wax iga sheegtay ayaan anigana maantay dacwada uga haraynaa marka walaalayaal ceebaheena ilaahay isku asturo marka waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan dacwada ha loo istaago ummadan wanaaga hala faro markaad adiga dacwo u istaagtid inaad munkarka reebtid aa u istaagtid ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana wuu ku wanaajinayaa waa ku islaaxinayaa maxaa yeelay mithaal haddaad rabtid maantay inaad dhar dhaqdid markaad dharkaaga dhaqanaysid laba shayba waad nadiifinaysaa hal shay qasadkaaga ma ahan inaad nadiifiso laakiin hal shay baad u socotay inaad dharkaaga dhaqdid dharkaaga markaad dhaqatid gacmahaadan waxay noqonayaan nadiif laakiin adiga uma socon inaad gacmaha aad dhaqdid ee waxaa u socotay inaad dharka aad dhaqdid waxaa ogaataa markaad u istaagtid inay ummadaani ummatu muhammad inay islaaxdo ay wanaagsanaadaan markaad u istaagtid aad adiga isku mashquulisid ogow adigana ilaahay aduu ku islaaxinaya subxaanahu wa tacaala wanaaga adiga aad samaynaysid dhoorsanaanta adiga aad dhoorsan tahay xumaanta adiga aad ka hartid waxay sabab ku noqonaysaa dib u noqonaysaa gurigaaga ubadkaagu ilaahay islaaxinaya xaaskaagu ilaahay islaaxinaya walaalahaadu ilaahay islaaxinaya subxaanahu wa tacaala laakiin haddii la waayo ummad u istaagto dacwadaani la waayo ay ummadda macruufka fari weyso xumaanta ka reebi weyso indhaha laga wada laabto ogaada guryihiin ayay fitantan ugu soo geli doontaa sida haddaba dhacayso hadda gabdhaheeni marada way xoorteen xijaabkii way xoorteen meel walba waxaa taagan gabar soomaali ah muslimad ah oo qaaban hadday rabto soomaalihana waxay rabto ha noqoto gabar muslimad ah oo qaaban ajaanibta aan ka dhoorsanaynin qofkay rabta iska salaamayso aan dhoorsaneen wiilal dhalinyaro ah aan waxba u aabayeelaynin amin xalaalin xalaal iyo xaaraam iyo toob aan u aabayeelaynin aanan cibaado haynin bal aan diintooda hataa aqoonin marka qaar markaa su-aalo qaar aa weydiiso qalbiga ayaa ku xanuunay ma yaqaanin diintooda ma baranin gabdhihii
way yaqaaneen sida loo isticmaalo aalaadkan way yaqaaneen, laakiin haddaad wax ka weydiisid dahaarada, haddaad wax ka weydiiso 24 saacadood sheeqow haddaan saan naqdo seen yeelaa maantoo dhan ku haysaa. war ummadda intay u soconaa? aaway dadkii islaamka ahaa, akhlaaqdii fiicneed aaway inay cuyuubteen isku asturna aaway. maxaa nagu beeray xaqdiga iyo xaasidkan iyo xumaantan? maxaa qalbigeena ku beeray? maxaa qalbigeena ku beeray? maxaa nagu dhacay? ummadii islaamka ahayd maxaa ku dhacay? ummadii muslimiinta ahayd maxaa ku dhacay? isbedelkan imaaday muxuu yahay? walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsano, arrimaheen aan wax ka bedelno, arrimaha aan sidaan wax ka bedelno. nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid uu soo saaray abi saciid al-khudri wuxuu yidhi nabiga sal slam, man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih. qofka idinka mid ah oo munkar arko gacantiisa ha ku zuuliyo, ha baabi'iyo, ha istaajiyo. haddaadan awoodin inaad gacanta ku zuulisid markaasi munkarka, fabilisaani, carabkiisa ha sheego, war iska daaya waxan waa munkar, war iska daaya, war ilaahay ka cabsad ha yiraahdo. hadduusan awoodin inuu hadlo, fabiqalbihi, qalbiga ha ka naco, wadhalika adcafu liimaan. iimaanka kan ugu daciifsan, kan ugu hooseeyo waa inaa qalbiga ka nacdid. maantay waan hadli karnaa, waan sheegi karnaa. walaalayaal, ummadan aanu istaagno, ummadan aan badbaadino. ilaahay unbaa badbaadi karo, laakiin dacwada aanu istaagno, maslaxdooda ayaa ku jirto. ummadan diinka ilaahay ha loogu gargaaro. maanta dadka jiiftay oo ilaahay cilmiga baray, ogaada korkiina xujaa ku oogan. social mediahani waxaa ka buuxa ummad laga aqli badiyey, la dhumiyey, fuyuus ku waashay. say u heli lahaayeen ku waashtay wax alaala waxa ay fuyuus ku helayaan way sameynayaan. qaara waxay ku hadlayaan kelimad gaalnimo oo islaamka uu uga baxayo, laakiin jaahilnimo ku xambaarayso ma oga. walaalayaal, ummadda ilaahay wax baray, walaalaha ilaahay cilmiga fahamsiiyey, meel aad ka aamustiin maantay lama joogo. wallaahi meel laga aamuso maantay lama joogo. gabdhihii yaryaraa, wiilashii yaryaraa, maamooyinkii waayeelada ahaa ayaa kulli ku wada daatan social media. qur-aankii waa laga hijrooday. qur-aan akhris haba sheegin, salaad haba sheegin, cibaado kale haba sheegin, tasbiix haba sheegin. nin walbo mobeelkaasuu saas u haya 24 saacadood. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولا ليال آمنا أن رحني إلهي أن رميني كريجيس لنلقو معفناي وانا لا امتحانيا. سؤال وانا قدام بيسا، سؤال أيا دم بيسو. cimrigan waana la weydiin doonaa, caafimaadkan waana la weydiin doonaa. cumrigaaga iyo caafimaadkaaga ilaahay waana weydiin doonaa. waqtigan aan ku baashaalayna ilaahay waana weydiin doonaa. ogow, maalin kuma dhaafto, maalaa yacni kuguma dhaafto ilaa saxiifadaaday kugu qoran tahay, buugaaga ayaa lagugu qoray. ogow, maalinta qiyaamana waa lagu horkeeni doonaa. اقرأ كتابك أيا لغو ديه دونا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أسيق أيا كوكفلا حساب كتابك أخرسو. قرآنك يا لغا هجرودي، برشدي سا لغا تغي، أحاديثتي نبي محمد برشدو لغا تغي، أذكارات هبا الشيغن. قفكي وحا لغا يابا ساكيسو أسوكعي أو موبيل أو قبتي قرأت أنا يقول عدي هل مرنس كتابك إلهي أوسن فيرين، هل مر كتابك إلهي أوسن فيرين.
nin ka hijrooday kalaamka ilaahay akhrintiisa goormee loo naxariisana nin awoodi waa inuu ilaahay u tasbiixsado goorme ilaahay noo naxariisanaya goormee nasr ilaahay helayna waa anagoo 24 saacadood Facebook dhex fadhina qiila waqaala waxaa la lahaa waxaa la dhahay kafaa bilmari ithmun qofna dembi waxaa ku filan inuu ka sheekeeyo wax kasta uu soo maqlay dembi intaasaa ku filan saasaa la lahaa saasaa la dhahay kanay ahayd maantan dhan aan ku mashquulsannahay ogow qof walbo inay garbaha malaa'ig ka saaran tahay adduunyadani hanti badan aad tacbatay magacaago sara maray dadkoo ku barteen waxba kuma anficayso waxaa wax ku anfacaya waxay tahay waxaad horumarsato weeyaan wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah waxa aa horumarsatay khayr iyo wanaag ayaad ilaahay hortiisa ka helaysaa nabi Muhammad Facebook ma isticmaaleynin TikTokna ma lahayn YouTube-na ma lahayn ummadoo dhanna way raacday macruufna wuu ahaa ummadoo dhanna waa taqaanaa waana la bartay salawaatu rabbi wasalaamu calayh Abu Bakar maanta waa la yaqaanaa macruufna ma ku naqanin Facebook iyo maxaan ku iraahdaa views raadisna caan kuma naqanin ummadoo dhanna way taqaanaa haddaad ilaahay ka cabsatid subxaanahu wa tacaala haddaad ilaahay si daacad u caabudid haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaash aad qabanaysa khaalis lillaah aad u qabatid ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku jeclaanay markuu ilaahay ku jeclaadana jibriil ayuu u naadinayaa jibriil ayuu ilaahay leeyahay fulaan hibil ayaan jeclaaday jeclow markuu jibriil jeclaadana dadka samada saarnaa dhan ayaa ninkaas jeclaanayaan kadibna dhulka waxaa loo soo dejinayaa jecel ummadoo dhan iska jeclaanayso ummadoo dhan waa iska jeceshahay wuxuu u qabtayna lama arkaayo walaalayaal meesha caannimada aan ka raadinayno ma taalo war maxay ku taraysaa adduunyadan laga yaqaan aan samada laga aqoonin war maxay ku taraysaa maanta oo dhan maalaa yacni aad ku hadlaysaa qiila waqaalaad ka hadlaysaa siyaasa iyo qashin iyo qurunaad ka hadlaysaa maanta oo dhan hal marna waad awoodi weysay inaa ilaahay u tasbiixsatid ninka meel fariista meel ayaa fariisatay waa hadashay waa baashaashay meeshii ayaa ka istaagtay adoo hal mar hataa nabi Muhammad ku salinin hataa hal mar ilaahay aadan u tasbiixsan hataa ka istaagtid qaamu kajifat alximaar wa nabi sallallahu alayhi wasallam ayagoo dameer baktiyay ka ur badan ayay meeshaas ka kacayaan maalinta qiyaamana xasratan wa nadaama shalay iyo qomamen ayay ku noqon doontaa maalinta qiyaamo mal Allah maxaa meeshaas u fariistay ayaa maalinta qiyaamay ku gaaraysaa adiga nafsadaada isweydii dib u laabo haddii nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu calayhi meel fariistay markuu ka istaagayo uu akhrin jiray subxaanaka allahuma bixamdig ashhadu an laa ilaaha illa anta ducaa kafaaratu lmajlis ayuu akhri jiray nabi sal sallam soo ilaahay ugu dambi dhaafo intuu meeshaas fadhiyay waa nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu leeyahay wallahi innii la astaghfiru allaha wa atuubu ilayhi fi yawmin أكثر من 100 مرة والله إلهي أيان أطوبت كينا إلهي أيان أولابتا مالنتي بقول جر إنك بضن ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا مسجر أيان أباهنها مسجر أيان أباهنها ولا ليال حساب أيان نقص عطو أنا نؤجين ولا ليال إلهي أنك عفصنا سبحانه وتعالى نفس دينا الإصلاحين kadibna aan u istaagnina ummadan aan islaahino wanaag aan u istaagno ceebaheena aan isku asturno insha Allah taala walaaliyaal mowduuciga wuxuu ku saabsanaa al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ma'ruf ko la faro xumaanto laga reebo xumaanto dadka laga reebo aan dadaalno insha Allah taala yaan dacwada laga seexanin oo ummadan wanaaga loo sheego qulil xaq walaw kaana mur adiga xaq sheeg xaq qaraarado ki ku nacay ha kugu naco xaq sheeg laakiin se u sheegaysa si ay wanaag iyo naxariis iyo kalgaceel ku jirto ee dadka diinta ha ka arodsiinina una seexeeya dadka walaalaha qaladaadka ku jira
haloo naseexeeyo yaa diinta laga cararsiinin. haddii ilaahay fircawn oo galay dembikii ugu weynaa dhulka la galo, fircawn ayaa galay, ilaahnimo ayuu sheegtay, wa ana rabbukum alaclaa wuu yiri, ilaahigeen ugu sareeya aniga waaye, ilaah aan aniga aan aheenna maba idin aqaano, maba ogi buu yiri. ilaahay markuu nebi muuse u dirayay iyo nebi haaruun, ilaahay muxuu ku dhahay? waquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha. waxaa ku dhahdaan qowl layin ah, qool jilicsan. maxaa yeelay haddaad qool jilicsan aad ku dhahdiin, aad ugu tegtiin, lacalahu, shuf, waxaa laga yaabaa inuu waantoomo, ayaa laga yaabaa u cabsadee hadal jilicsan ku dhaha. waxaa u malaynaysaa qof muslim caasi ah. marka qof muslim oo ilaahay ku caasiyey markaan la hadlayno, imise jeeraan u baahana inaan hadalka u jilicno. wuxuu ku jira inaan ku cayno ma aha, inaan u goyno ma aha, inaan maantay intaan social media soo istaagno aan dhahno ma aha, saan isaan ma aha. waa si basiid ah, si saraaxa ah, naxariis ku jirto, galgaceel ku jirto, inaan u tagnoon dacwada aan u siino waayo. aanana ka daalin maraad dhowr jeer aan ku naqnaqan aanan ku daalin, ilaa markii dambe ilaahayna aan u barino subxaanahu wa tacaala. hadduu ku caayana aan dhahno khayr allah ku siiyo walaalkey, ilaahay ku soo hanuuniyo. aan dhihin animaa isoo caaysay, animaa saa dhahday aysan ahayn. sunnada dacwada maba aha. nabi maxamed aa la caayinaya sala allahu calayhi wasalam. marka ilaahay ha idin barakeeyo, ذنوبتنا إلهي اسكو لافو وحي أن قفيفة من نفسي والشيطان، وحي أن أصيبين إلهي حكيس أي كأهاتي. مرك إن شاء الله تعالى كليب كيميشان كسو قابنا يا موضوع الموضوعات وبلا رواي وقت كان إيه مسامحايو. مرك إن شاء الله تعالى ولا ليال عن دعوة أن كشقين إن شاء الله تعالى. هذا وبالله توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.